wacan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka ifiya oo aynu ku waraysanayno aqoon-yahanka Soomaaliyeed ninka ugu taariikhda dheer marka la eego dadka siyaasadda geeska Afrika muddada dheer ka faaloonaya Faysal Roble oo waqtigiisa qaaliga uga mahadcelinayno muddo dheerna ka faaloonaya xaaladda dalka Soomaaliya iyo geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka iyo waxa Soomaalida quseeyaba qodobada aynu ku eegi doono waxa kamid ah dowladda Itoobiya iyo xaaladda ay ku sugan tahay oo aad iyo aad looga sii dayrinayo iyo hoggaanka Abiy Ahmed doorashadii isku sidkaneyd ee taariikhiga ahayd ee ka dhacday Somaliland 13 bishii 11 sanadkan aynu ku guda jirno 2024 qaybta dambana xaaladda guud ee Soomaaliya ayaynu ku eegaynaa iyo khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya maamul goboleedyada qaarkood iyo dowladda dhexe Soomaaliya Faysal Roble sharaf iyo karaama ay tahay waqtiga qaaliga ah aan siisay anigoo ognaad aad iyo aad u mashquulsan tahay waan ku soo dhaweynayaa si diiran Cabdixaafid waa dhawahay runtii adiga iyo daawashayaashaada qiimaha leh intiinaba waa idin salaamay waana dhawahay waa hagaag haddii aynu marka hore ku horeyno Somaliland waxa ka dhacay wax bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay ku faraxday tusaale qurux badan u noqday sidii doorashadu u dhacday iyo Muuse Biixi hadalkiisii uu ku soo gabagabeeyay oo aqbalay natiijadii bal marka hore maadaama aadan fursad isku helinin doorashadu intay socotay bal kalimadii laba ka dheer Somaliland maanta ee tusaalaha quruxda badan ay bixisay sax runtii ugu horeyn sidaad ba sheegtay Soomaalida inta kollaba ku jirta meelaha wararka la isku dhaafsado aan noqdaan kuwa maxalliga iyo kuwa kaleba arinta aad kaga dhawaajisay in loo qushuucay sida Somaliland doorashadu uga dhacday arintaas waa halkeeda waana kula qabaa runtii in madaxweyne Muuse Biixi oo culaysyo badan bariyahan ku taagnaayeen uu finally isna ogolaado natiijada lagama gudbaanka ah ee ka dhacday Somaliland waxa isna runtii tahniyad u baahan in loo gudbiyo Cabdiraxmaan Ciro oo isna ku guuleystay runtii campaign fiican qabtay taasi waa ta guud kala badnaanshaha ay kala badiyeen runtii waxa afka qalaad loo yaqaan mandate oo madaxweyne Cabdiraxmaan la siiyay ayaad moodaa inay meesha ka dhacday macnaheedu in lagu doorto 64% waxaad oran kartaa doorashadu ma ahayn laba nin kala dooro laakiin kacdoon ku aadan madaxweyne Muuse Biixi iyo diidme laga muujiyay siyaasaddiisa intii dambe ayaa horta meesha ka dhacday anigu Shanbari intaanay doorashadu dhicin bisha 10keedii Twitterka waan geliyay 5 qodob ayaan cuskaday in madaxweyne Muuse Biixi laga badinayo sidiina way u dhacday 5 qodob waxa kamid ahaa kow Muuse oo ay ka baaheen kana baxsadeen xulifadii siyaasadeed oo la oran jiray the Selaanyo Coalition ama dadkii Selaanyo ku wareegsanaa ayna isla soo dhiseen midda labaad waxay ahayd runtii shaqo la'aan iyo rajo la'aan xagga dhaqaalaha muddada dambe ka muuqatay oo sida la sheegayo dhaqaalaha Somaliland wuxuu taagan yahay 5 sano meeshu taagnaa waxay ahayd inuu 5 laab koro laakiin markuu Muuse qabtay Soomaaliya qaybta kale ee federaalka iyo Somaliland budgetkoodu wuu isqaadanayay laakiin maanta way ku 3 laabmataa marka koritaan la'aan ayaa iyo dadkii oo shaqo la'aan dhalinyaradii oo waxay qabtaan la iyo runtii dabarjabinta weyn ee Muuse sida aniga ay la tahay ku dhacday waa laba arrimood arinta koowaad waa arinta MOU-da oo u soo noqon doono ama hindisa heshiisaadkii oo la galay dowladda Itoobiya oo iyada qudheedu naxash ka saaran iyo laba dagaalkii aan loo baahnayn uu ku qaado SSC oo runtii Somaliland waxyaabo badan oo lagu amaani jiray oo ahaa dulqaad iyo kala dambeyn iyo isqancin iyo wax la yiraahdo reconciliation ama dib u heshiisiin ka soo bilaabmatay waqtigii Allah naxariisto Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal iyo raggii fugacdaaga ahaa Selaanyo qudhiisa inuu ka talaabsaday Muuse uu markaa isiriya qolo SSC sanduleyntii uu isagu ka dagaalamay ayaad ku qaadi kartaa arrimahaasi horta dhabarkii ka jabiyeen iyo isagoo lacag waa ku dhacday waqtigii doorashada runtii oo dadkii wax siin lahaa ama wax ku soo kordhin lahaa
intuba ay ka wacdeen waad ogtahay socdaalkii ugu dambeeyay uu kayd ninka la yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda uu u diray Addis albaabada ayay xataa Ethiopia ka xidhatay ma noqdo xafiiska prime ministerku ama ha noqdo xafiiska sirdoonka ninka haystay Ridwan Hussein oo gacan saar la lahaa sirdoonka Somaliland mana una eedeeyo Ridwan in uu lacaga aan sharci ahayn ka qaadan jiray dawladda Somaliland in labaduba ay kayd saacad kayd ay albaabada ka xidheen isagoo faramaran oo soo noqday xagga ay kala kulmeen wafdi Cabdiraxmaan Ciro oo xilliga madaxweynaha ahayn ay qaabileen marka runtii election saas uu dhacay waa mandate mainly ku saabsan diidma la diiday ama aqlabiyad lagu diidayo maamulkii Muuse uu madaxa ka ahaa halka maxaa ka sii amba qaadi karnaa waa laga hadli karaa laakiin doorashadaasi waxa u dhacday sidaad sheegtay midda kaliya ku dari karaa waxa weeye riboorka ugu fiican dawladda Mareykanka ama safiirka Mareykanka ee xamar fadhiya iyo xulifadiisii ayaa ka qortay riboorkaasi wuxuu sheegayaa in si fiican ay uga dhaceen dhowr kun oo goobood doorashadu inta goobood ay iyagu tageen ay arkeen si fiican inay doorashadu uga dhacayso marka laga reebo daldaloolo yar sida for instance ciyaal aan da'dii qaangaarka ahayn oo meel qaarkood ka codaysay laymanka oo dheeraa oo dadka aan loo sii diyaar garoobin inay markaaba ku ridaan iyo midda saddexaad ay sheegeen oo ahayd in mararka qaarkood aanay furayn meeshii goobihii lagu codayn lahaa marka runtii intaa markaad ka reebto casharro iyadana laga baranaya ay tilmaamayaan riboorka ay ka geeyeen Mareykanku aad buu fiicnaa waayahay arrinta MOU-gu qayb weyn bay ka ahayd ayaa la leeyahay dadka reer Somaliland waxyaalaha ay go'aanka ku qaateen maxaad ayada looga sheegi kartaa saameyn intee leeg ayay Muuse ku lahayd maxaase Muuse lagu xasuusanaya Muuse waxaa lagu xasuusanayaa dhowr arrimood MOU-du waa ka koow waan usoo noqon doonaa iyada laakiin waxaa lagu xasuusanayaa hadalla xanaf leh oo noo baahnayn oo ummadda Soomaaliyeed maaha dawladaha Soomaaliyeed ama maamulada Soomaaliyeed oo qofba siduu dooni ha u dhigo laakiin ummadda Soomaaliyeed kala fogeynaya gaar ahaan isaga iyo Faysal Cali Waraabe oo runtii ummadda Somaliland finally ay u sheegtay inaanay inaba diyaar u ahayn inay siiyaan jago uu siyaasadda Somaliland ka qayb galo xanafta hadallada leh ee ummadda Soomaaliyeed lagu kala fogeynayo oo siyaasadda ka baxsan oo qabiilaysan Muuse waa lagu xasuusan doonaa olaad aan micno lahayn isagoo og in Soomaalidu hadda isdhex socoto oo xataa maantada Hargeysa dadka fantasiinaya ay ku jiraan Soomaali oo dhan in taa waa lagu xasuusan doonaa talabaad waxa lagu xasuusan doonaa Somaliland dhexdeeda in uu kala fogeeyay dadkii Somaliland oo runtii aad moodo mar haddii aanay doorashadani dhici lahayn in lagu noqon lahaa lixdameeyihii mararka qaarkood Somaliland sida ahayd lixdan baadhi wax ku dhow ayaa ka jiray jidadka ayaa lagu heesi jiray iyadoo la soo kala horjeedo taana waa lagu xasuusan doonaa waxa kale oo lagu xasuusan doonaa runtii dhaqaale xumada iyo macnihii naanaysaha loo bixiyay madaxweynaha waad ka garan kartaa in dadkii aanay xaqsoor u helayn wixii ay meesha yaalay qabyaalada guduhuna ay xumaatay iyo afraad oo lagu xasuusan doono runtii sida foosha xun oo u maareeyay heshiisaadka ama MOU-da uu la galay Ethiopia marka Cabdixaafid Adaadiix saxdo taariikhda Soomaalida iyo waxa hadda taagan markaan eegayno gaar ahaan madaxdu markay eegayaan in ay ka fiiriyaan ma haya ishaya ma Muuse iyo Cabdiraxmaan baa ishaya ma Cabdiraxmaan iyo Xasan Sheekh Maxamuud baa ishaya ma Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Madow baa ishaya waa in intaa laga yar koriyaa aniga waxaa aad iyo aad ii daneeya in aynu because at the end of the day marka fandaaliya xeera kala dhacaan waxa weeye dhulkan ay ummadda Soomaaliyeed leedahay sidii doonaha ku yaalatay in gacanta loogu hayo waxa kamid ah for instance qaybta Djibouti Soomaalidu leedahay bimacna shanta Soomaaliyeed ka mid bay ahayd Djibouti laakiin maanta waxa dan inoo ah in dhulka Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed degan tahay gacanta lagu hayo saddex timeline ama taariikh xariiqeed ayaynu soo maray Soomaaliya hadaynu nahay meesha maanta aynu joogno waxa weeye markii Berlin lagu shiray oo 1884 Afrika la qaybinay Soomaalidana la qaybiyay waqtiga
innagu waa guddoonnay oo waxay nagu dhacday seef adag oo Etoobiyana waa ka faa'iiday sheekadaan meesha ka wada Etoobiyana waa ka faa'iiday oo dalka kaliya Afrika ee ka qayb galay shirka wakiilo ku lahaa waxna ka helay oo marka ay sheeganayso dhulka Soomaaliya taariikhda weyn ee labaad waxay dhacday Cabdixaafidow dagaalkii adduunka ee labaad markuu dhamaaday dagaalkii adduunka ee labaad ka hore iyo dagaalka adduunka koowaad way isku dhawaayeen wax taariikh yar baa u dhaxaysay laakiin isku taariikh u baahan dagaalka adduunka ee labaad markuu dhamaaday huwantii guuleysatay Allied Force-ka loo dhanayay Ingiriiska oo Haile Selassie la saftay ayaa waxay noqotay in loo abaalgudo markuu Haile Selassie dhulkii Soomaalida sheegtay Howden Reserve Area oo meesha Muuse u ka yimid Cabdiraxmaan Qudhiisana reeraha uu ka soo jeeday ama haybtiisa bar badan xataa suldaanku uu halkaa ka soo jeeday gaashaamo iyo meelahaas in lagu sharfay dhulkii Soomaalida ee Howden Reserve Area loo dhanayay Haile Selassie maadaama adduunku waqtigaa uu kala wareegay dalal baa soo baxay Israa'iil baa soo baxday dalalka carabta qaar soo baxeen Afrika ayaa soo anba qaadaysay Soomaalida waqcadii labaad aan weli ka soo kaban ayaa xilligaana ku dhacday yaa ka faa'iiday Ethiopia oo markii labaad hadda waa markii saddexaad oo xataa markii ugu horeysay adduunka ka hadla dagaal saddexaad ama siyaasad saanti dagaal adduunka saddexaad leh hadda inaga cidda ina danaysa Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Sweden iyo kuwaas ma labadii dagaal ee hore ama adduunka la kala qaybinayay dalalka reer galbeedka ayaa daneynaya aad siyaasadeena maanta gacanta waxa ku haya bariga dhexe gaar ahaan United Arab Emirates iyo kuwa lamid ah kuwaas oo kaashanay Ethiopia waqcadda saddexaad ee nagu dhacaysa waxay noqon doontaa mid ummadda Soomaaliyeed badaheeda qaar kamid ah ay ku weydo ma in Ethiopia sida ay ku dhaaratay si kasta ay noqoto inay badaha Soomaaliyeed gaar ahaan Zaylac Berbera iyo kuwa ay sheeganayso in mar saddexaad Ethiopia ay ka faa'iido inana aan ku hungoono waa arinta aan rabo marka ay siyaasiyiinta Soomaalidu ay waxeerinayaan inay dib iyagoo xataa is haysta inay bal dib gadaasha u yar fiiriyaan oo yiraahdaan war waxa hadda inaga dhex taagan iyo siyaasadda adduunka ka socota saameyn caynkii abay ku yeelanayaan Soomaalida haddaan wax laga qaban oo meeshan ku soo gabagabeynaya haddaanay dadka Soomaaliyeed indheer garad yeelan oo ina wax ka qaban arrimaha hadda ku gadaaman oo degdeg u fiiriyaan colaadda dhexdooda ka dhacda iyo ficilka dhexdooda ka taagan waxaan ku ballan qaadayaa waqcadda saddexaad inay noqonayso kuwii hore mid lamid ah in ummadda Soomaaliyeed anigu oran maayo dawlad Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ay wax ku weydo dalka had iyo jeer kulaalaya Soomaaliyana markii saddexaad isna ka faa'iideysto aad iyo aad u mahadsantahay booskaas markaan intaas qodobkaas kaga baxno toos wuxuu noo geynayaa Ethiopia iyo xaaladda maanta ay ku sugan tahay iyo weliba Israa'iil iyo geeska Afrika saameyntii doonaysa inay ku yeelato xaaladda Ethiopia maanta xagee ayay maraysaa markaad qiimeyn ku samayso Ethiopia waanay burburin laakiin waxay maraysaa runtii Soomaaliya waqtigii 1989 meelahay maraysay intaanu qarxin civil war-ku jidadka la isku dilay saako ugu dambeysay waxa aad loo wareejinayaa lagana xishooday in fiidiyada adduunka la soo geliyay barta bulshada inan Oromo oo jidkiisii la jarjaray macnaheedu ma aha dil Soomaalida hadeen ugu badanna xabadii xal isku dhufin jiray laakiin gowrac waad ogeyd markii dagaalka Tigreegu socday dad nool inta la qabtay in kibrid iyo benzin inta lagu shubay la gubay mid ma aha laba ma aha saddex ma aha boqolaal marka loo aaneynay inay Tigreega ahaayeen hadda waxa la sheegayaa maadaama dalka dagaalkiisu uu xagga Oromoda ku soo weecanayo in la gubay dad nool dalkan Ethiopia heerkaas uu maanta maraya dhaqaalaheedu wuxuu yahay Prime Minister Abiyina isagu wuxuu ku jiraa riyo kale oo jidad baan dhisaya iyo waxyaabo noocaas isagoo hadda xataa dawlad deegaankii Soomaalida ku qasbay inay guriyo dumiyaan jidad aan jirinna oo wax la waxayeen la dhiso Ethiopia laba dagaal oo xoog ayaa ka socda kan Amxaarada iyo kan Oromoda Tigreegu dawladii yarayd oo lahaa waa waayeen magaalada Addis Ababa durba wax soo baxay saansaantii qeyro ama dhalinyaradii Oromoda ee markii hore riday Haile Mariam mudaharaadadoodii baa dib u soo noqday networking wax la yiraahdo baa sameysanayo mucaaridka iyo kuwa qoriyaha inay wada hadlaan xataa inay Soomaalida la hadlaan
warar badan baan ogahay ay soo dirayaan fariimo oo leeyihiin haddaan anagu nahay mucaaridka waa ka noqonaynaa MOU-da dhulka Soomaaliyeedna dan nagama hayso Soomaalina si walaaltinimo in the future ula shaqaysanaan rabnaa laakiin hadda halganka aan ku jirno xoogaga Soomaaliyeed ama ha noqdo ONLF ama ha noqdo kuwa kale inaan wax nala qabsataan ayaan rabnaa waa literally 1970s xilligii ay Soomaaliya kala furfurtay Ethiopia oo kale ayaad moodaa in hadda soo noqonayso marka waxa la rabaa siyaasiyiinta Soomaalidu inay u dhuur galaan inay si fahamsan u eegaan xaaladda Ethiopia ka taagan runtii Abiy wax badan gacanta ugu ma jiro Eritreana waa kulaalaysa ninka xeeladda iyo siyaasadda geeska Afrika dab ku shida kala furfura iskuna geyn kara waa siyaasad fuwarq siyaasabeen iyo maalin ma seexdo xulifadii amxaarada uu markii hore isagu hooyay dib uu la xidhiidhay raggii ugu cadcadaa halgankii ka soo horjeeday Tigreega maanta qaarkood ama asmaray fadhiyaan ama safaaradaha Eritrea dibadaha jooga ayaa laga maamulaa waxa laga yaabaa Soomaaliya quleedu inay hadhowto la rool ka ciyaari karto haddii ay iyadu gudaheeda nadiifiso Soomaaliya dibta ugu wanaagsan waxa weeye gudaheedii ayaan inaba la dejin karin maadaama runtii ay anigu saanu qabo Faysal ahaan maqaalan hadda qorayo arrinka qabiilka ayaa runtii aad moodaa inaynaan rabayn karin malhi inaynaan ka bixi karin inaynaan rabayn karin macnaa xayawaanku libaaxu dadka wuu cunaa laakiin marka la rabeeyo waad la noolaan kartaa kama qaalan runtii hadda gacantan ku hayo arrimahaas aan rabaa inaan fiiriyo laakiin maanta Ethiopia xaalkeedu ma fiicna waxaad tiri arrinta MOU-gu naxashkay saaran tahay maxaa loo jeedaa runtii horta dee Muuse ayay ku khamaarayeen dowladda Ethiopia hadduu Muuse soo bixi lahaa waxaa laga yaabaa in ay weli dadka warwareejin lahaayeen si 30 beri ayaan howlgal uga dhigaynaa MOU-da ayay ahayd maalintii January 1 la saxeexay MOU-daas Muuse iyo Abiyina ay wada fadhiisteen Addis sanad baa hadda laga joogaa sanadka maalinta ka dambaysa Abiy uu ka soo fogaanayay fakarka MOU-da markii ugu dambeysay uu MOU-da ka hadlay wuxuu Abiy sheegay hindisaha MOU-da Ethiopia ku rabto badaha Soomaaliya inayna maanta iyo bari ahayn inay 20 sano 25 sano generation idil qaadan karto siyaasi ahaan hadalladaasi waa ka faagasho iyo dib u noqosho meeshii la dhigay maalintiina lagama soo qaadin fakarkii ahaa 30 beri gudahood baan ku xallinaynaana meeshu ka baxay iyadoo taasi taalo waatan aan ku yiri wafdigu u diray Muuse markii intaan la gelin doorashada albaabada laga xidhay madaxweyne cusub baa soo baxay iyo baarlamaan cusub oo labadaba wadani ay haystaan runtii Soomaalidu ku degdegta maaha Cabdiraxmaan dhibaatooyin badan baa haysta sidoo uga noqon karaa MOU-da ma ka noqon karaa ma u dhaarsan yahay MOU-da waxa laga sheegi karo Dr. Maxamed Cabdullaahi oo laga yaabo inuu noqon doono wasiir khaarijiyihiisa inuu si cad u sheego waxba kama sheegi karno MOU-da maadaama aanan aragba waxay sheegaysaa waxay tahay markaa waa la qaybsan doonaa way ila tahay laakiin hadda wixii ka dambeeya Abiy ma dadajin doonaa oo intuu Cabdiraxmaan Cirro qasba ma oran doonaa saxeexno ilama ahaaniga taas way adag tahay ugu yaraan waxa dhici karta waajibna bal in horta Cabdiraxmaan iyo kooxdiisu ay yiraahdaan nasiyo oo wixii akhristaan waqtiguna waa jiitamayaan dawlad buu dhisayaa wasiirro dhisayaa baarlamaankiiba dib loo soo fariisiinayaa waxaasoo dhan waa 6 bilood iyo wax ka badan 6 bilood marka la gaarina sanadii 6 bilood bay noqonaysaa Abiy kooxdii uu berigii ka iibiyay mudaharaado u soo banaan baxday in MOU-da markii ugu dambeysay ay Ethiopia hesha bada iyadu iska leedahay military-keeduna bad helay horta arrintaasi durba way soo qaayaysaa hadday qaayso wax way Abiy laba culays baa haysanay ma ka noqonaya official ugama noqonayo intuu soo taagan ma oranayo waa heshiin weyn Somaliland waa ka noqonay laakiin bootayntu wadaya bootaynta hawada ee dib ma u dardargelin doonaa in Cabdiraxmaan inta asaaba looga yeedho la yiraahdo arrintii aan ka wada shaqeyno uu sameyn doonaa taa because face mar raba inuu dadkiisa horteeda ku noqdo qof daciif ah oo kii hore uu xidhiir lahaa kiina laga badiyay haddana waxba durbo idaacadooda waxay ka sheegayaan in aanay waxba iska bedelin mowqifkii Somaliland ay ka lahayd MOU
mana hubaan way iska leeyihiin idaacadaha Ethiopia taas la faafinaya Cabdiraxmaan waxa ku haboon xaafido inuu waqti qaato inaanu ku degdegin in uu fiiriyo daaha waxa ka dambeeya gidaarka waxa ka dambeeya dhulka saaga waxaan dhaysanay ku yar oo dhalin oo aan u malaynayo 14 jir 13 jir laakiin jirkiisu yar yahay oo leeyahay badda ka waran burcay ahayd wili bad baad leedihiin waad siinaysaa waxaanaan ka kareynayn buu masquulaha magaalada ku dhex yaala bimahana waa caadifad ummadda Soomaaliyeed marka Somaliland iyo Soomaaliya inay isku soo noqdaan inay kala joogaan taasi waa halkeeda Cabdiraxmaan Cabdixaafid oo taanigu waqtigeedaan u deynaya laakiin in dadka Somaliland ay dhulka Soomaaliyeed ilaaliyaan runtii iyagana xilbaa ka saaran qaybta Somaliland la yiraahdo xilbaa ka saaran Soomaaliyeedna xilbaa ka saaran una malayn maayo in dhul badal ay Soomaaliya leedahay oo la leeyahay Ethiopia la siinaya ay siyaasad fiican u noqonayso muusana umay ahayn Cabdiraxmaan uma noqonayso waayahay faragelin Ethiopia ayaa jirta leeyahay geeska Afrika waxaynu kala soconaa arinta Ethiopia mise Israel raalli noqon absolutely I think Israel aad bay bariyahan arinta geeska Afrika gacanta ugu haysaa maqaalaad saaka ila qaybsatay oo ka warqabaana waa jira Israel maadaama ay baabiisay Falastiin sida iyadu isku haysato Gaza ay baabiisay Hezbollah ilaa imika ay ka dishay wax 3500 ku dhow infrastructure badan ama qaabka ciidamadu u dhisnaayeen ay waxyeeleen waxa kaliya u hadhay Iran u malayn maayo inay ku duuli karto laakiin Israel waxay laba xoog ayay tirsanaysaa xoog waa kii ciidamada iyo militariga oo ilaa Mareykanka u taxan xoog kalena waxa weeye Abraham's Accord heshiiskii ay la heshiisay dalalka Carabta habo ugu horeeyaan Sacuudiga iyo United Arab Emirates arintaas waxay ku taxliilinayaan inay xiriir la leedahay ama la yeelan doonto qadiyada ka taagan geeska Afrika ama ha noqoto gacanka Carabta ama ha noqoto badda cas oo labaduba badmareen u ah bay'mushtar badan oo Israa'iiliyiintuna daneeyaan United Arab Emirates daneeyaan Sacuudiguna daneeyaan Israel maanta heerka ay joogto badda cas iyo gacanka Carab daruuri buu yahay sidee ku wajihi doonaan lama garan karo laakiin waa in isha lagu hayaa haddii ay Israel Abraham's Accord ama heshiiskii Abraham la yiraahdo ay dib u soo celiyaan iyagii Carabtu waxa Israel iyo isku soo dhawaan doona Israel iyo United Arab Emirates iyo Ethiopia taasina waxay ku yeelan doontaa waxyeello weyn qadiyada Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed iyo badda cas haddii Sacuudi oo hadda ka faaganaya oo kana fogaanaya Israel ilaa inta qadiyada Falastiin meel la dhigayo oo gacan adag tuso Israel dan waxay noqonaysaa waxa soo baxay xulifada Sacuudiga iyo Masaaridu caynka u hayaan oo iyana ah kooxda badda cas oo Sacuudiga Masaarida Qatar kuwaasina ay meesha ku jiraan taas ayaana Soomaalida u danan islaayay laakiin khatarta ugu weyn ee maanta Soomaalida hortaala waxa weeye Israel iyo Ethiopia oo xulifo ka noqda arinta badda cas taasina waxay garka inoo gelinaysaa maamulka Trump oo hadda ay qabsadeen Zionist ama pro-Israeli koox leeyahay from Stephen Miller ninka fakarka u dejinaya dawladda Trump ilaa ambassadorka Huckabee oo loo diray Tel Aviv inuu uga noqdo Jerusalem inuu uga noqdo safiir Mareykanka waxa la wixii kiniisadda iyo Yuhuudda uu mayalka adka ayaa maamulka Trump isu soo ururay haddii marka somehow Ethiopiaanku ay ku guuleystaan fikradda badda cas inay ka gadaan Israel oo already isgo dan dagaal cusub iyo waji cusub ayaynu galeynaa Soomaali ahaan aan cidna dana u ahayn Somalilandna aan dan u ahayn Soomaali weynta kalena aan dan u ahayn laakiin dhul isku soo dhaweynaysa damci Yuhuudda iyo dhulka Soomaaliyeed waayahay gabagabadii gunaanadkii waxaynu la soconnaa xaaladda Soomaaliya wajiyo badan bay leedahay khilaaf ayaa jira dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada u dhaxaysa bal sawir naga sii meesha xaaladdu marayso wallahi runtii waa caqabadaha ugu waaweyn ee Soomaaliya hortaagan muddo hadda aynu oran karno 20 sano iyo wax ka badan caqabadaha ugu waaweyn markii hore waxay ahaan jireen
cabdixaafidow soomaalidu ha ogaato kuma koobna caqabadani hal maamul, laba maamul, saddex maamul. Waxay soo jiitamaysaa runtii ilaa waqtigii dowladdan ku-meel gaarka la dhisay oo aad moodo is-afgaranshawaad aan xuri ahayn laakiin u noqday dhaqan marka wax la isku qabsado in la kala fogaado aan focuska la saarin ama diiradda aan la saarin qalabada lagu soo afjaro arrimahan isqabsashada. Marka anigu fakarka aan ka qabo waxa weeye markii hore waxa aad isku haysan jiray dowladda dhexe iyo Puntland oo weli aan arrintooda aan xal u helin ilaa imkana meel kala taagan. haddana waxay haysto si aad isku haysto dowladda dhexe iyo dowladda Jubbaland. arrimaha la isku haystaa runtii waa arrimo aan isleeyahay haddii la isdejiyo in la isqancin karo, laakiin waxaad moodaa Soomaalida waxa caadi inoo inta badan lama focus gareeyo solutionka iyo sida loo xallin karo, laakiin waxa diiradda la saaraa wixii moogtahay. waxaan aad iyo aad uga helaa runtii hees ay wada qaadaan Zahra Khadra Daahir iyo Saada Allah u naxariisto labadoodaba, oo markii dagaaladu bilaabmayeen labada hablood talantaali ay ku wada hadlayeen way lahaayeen anigu duurkaan galay, dufays baan galay, waa dagaalamaya. Ta kalena ay leedahay gacantii adiga kaa go'daa waa mid aniga iga go'an, guusha aad weydaa waa mid. Soomaalidu wax ma dhegaystaan. berigaasa waxaan maqaalan beri hore qoray baa waxaan maalintuu Maxamed Ziyaad Barre Allah u naxariistay heestaa uu dhegaystay waxay ahayd inuu commission saaro, yidhaahdo war labadan hablood ee Soomaaliyeed waxay arkayaan ha laga soo tala bixiyo. 2 years after that hees Soomaaliya way burburtay. bimacni waxa weeye astaamaha burburka markaad arkayso waa inaad wax ka qabataa. runtii marka arrintan hadda taagan weli maxaa la yidhi siday u xun tahay uma allala u malayn maayo in ay 100% derbiga ka dhacday. meelo laga soo qaban karaa jira. waxaan isleeyahay meelaha laga soo qaban karaa inkastoonan aad iyo aad arrintan maadaama fasaxiyaan ku jiray aanan telefoon iyo wax badan dirin, laakiin meelo laga qaban karo aniga way ii muuqdaan. waxaanan u malaynayaa in the coming 20 beri ee soo socda waxa iska cad in Axmed Islaan dowladdiisa ku dhawaaqayo oo 5 sano ciddii ku soo baxda sidoo ay iyagu sheegayaan la samayn doono. marka wixii ka dambeeya maxaa la qaban karaa weeye, because maanta bish waa 22 4 cisho ay naga hadhay. waxaan rajaynayaa qabaana inaanay arrintan sidii kuwii hore ahaanin, inaan gobolka Jubbaland, dowlad deegaanka Jubbaland iyo dowladda dhexe aan isku dhacayn sidii berihii hore, in xiisadda la dejiyo, in aan dagaal iyo wax la mida meesha aanu ka dhacayn, in xataa haddii uu dhaafo arrintani ay dhaafto caqabadda ugu weyn ee doorashada la qabanayo, qaar kalena ay diiday doonaan siday ku caddahay. laakiin ciddii ku soo baxdaba waxaad moodaa in the cart has left in already arrintaas ay dhaqaaqday. sidee looga daba tegi karaa, sidee loo wada hadli karaa, sidee loo sharciyeyn karaa, sidee sharci la'aan ay u socon karaan, waa arrimaha in hor taagnaan, because federaalka iyo dowlad goboleedka waxyaabo badan baa ka dhexeeya. waxaa kaliya ku faraxsanahay cabdixaafidow 1 milyan baa ka dhintay Ethiopia dagaalkii Tigreega. arrin labadan oo kale la mid ah ayay ku bilaabmatay. Tigreega ayaa yidhi waxaanu qabsanaynaa doorasho. kuwa federaalkuna waxay yidhaahdeen ma qabsan kartaan. kuwa Tigreega way ku dhaqaaqeen, way qabsadeen. 5 cisho dabadeed way weerareen. waxa arrintaa ka fiicnaan lahayd maanta 1 milyanna aanu baabi'i lahayn, dalka Ethiopiana xawaarihii dhaqaalaha ku socday weli uu ku socon lahaa haddii markay ku dhawaaqeen siyaabo kale loola dhaqmi lahaa. ka dhowrsanaysa dagaal, laakiin may samayn. abiy nin fudud buu noqday. innaga Soomaali ahaan waxaan ku kalsoonahay in aynaan jidka Ethiopia marin, sababtoo ah naturally dadkeenu si gaar ah isugu xidhan yihiin, si gaar ah ay u walaalayihiin, si gaar ah ayaad moodaa inay isugu tolan yihiin, hays xagxagteen. siyaasadda xagxagashadeeduna everywhere waa meel wax ka dhacda. waad agtahay maanta Trump iyo Harris ma wada hadlayaan, laakiin marka ay uu la wareego awoodda waxaan u malayn after few days inay is arki doonaan.
إنه ساسو كان ودونها ما دام دقن كسوماليد وكدوين هي كان إثيوبيا حتى مركي سيفل وورك إنه قد عي عبد حافظ إن الصوماليد لا شيء كسنة يعني أنت سيدا إثيوبيان كيسكو دليا الصوماليد يسكو مدلين دمشق وجوين إذا إنه قد عي وا تريانجل كيلو رنيه تبيدو تريانجل تذكر أبارها هي معلوش كواي لكن دد أنت وقعدي ورثي مويه حتى ددكو اسمرتي قلينيه marka runtii waa ka duwanahay waxaan ka rajaynayaa in arrintani ay si fiican ku soo dhamaato doros ma samayn karo laakiin waxaan alla ka barayaa runtii aan leeyahayna kow inaynan sidii Ethiopia noqon oo arrintani burbur iyo dagaal inoo horseedin laba in had iyo jeer la aaminsanaado siday u ilxun tahay inaanay u alla la'ayn taasoo inoo fududeynaysa in la wada hadli karo iyo saddex sidan sheekadeena ku bilownay in Soomaalidu ay fiiriso in waqti adag marka geopolitics adduunka meesha uu marayo geopolitics aan danaynayn ama aan xaalaynayn Cabdi Xaafid iyo Faysal waxay isku haystaan they really don't give it a damn anigi iyo adigu kursigaan isku haysano sheekada yar ee xaafadeedka representationka yar ee leeyahay reehbel intaasay ku jiraan waa dab in Soomaalidu arrinta ka xajooto oo nina xaqiisa in la duutiyo ma jecla laakiin in the greater marka la eego sheekada ballaaran ee maanta geeska Afrika u wareegayo sidii nin reeqooyo sheegayo dagaalkii SNMta markay report siiyay korneelkii u xil saaraa ku yiri sheekada joojiyo gidigii nimaasayda ka wada dhimatay Soomaaliya oo dhan that's how the world sees in dadka Soomaalidu marka ay ogaadaan samata bixin inay hadii jaro noqoto bottom line waxa hadhow biyuhu ku soo shubanayaan inay noqoto samata bixin la isku samata bixinayo how sidee jidkee loo marayaa waa arrin ummadda Soomaaliyeed u furan وهاجاج فيصل وحنا كجماعة عليا وقت جا قال جا يسال مد الصومالي المر والبابا وهو بتسال يسد عبالك جا موجود كرنو داودي البرنامج كأني في تضبط كان أنت أيوكو يجي هاي أنت كانوا كلا ديبو كل مدونه أنا هو اسكت دوما وحنا دلنا هنا بتقولي